daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha leh aan ku soo dhawaada barnaamijkeena farxiishow aad kala socotaan farxiishow.com anigoo ah Farxiya Khaliif toddobaadkiiba waxaan idin soo deynaynaa barnaamij aad iyo aad u xiiso badan haddaba barnaamijkii aan ku wada jirnay aniga iyo Marwa Saciida Shaay aan halkeena ka sii wadi doono caawa waxaan taabanaynaa qoyska Soomaaliga iyo isbedelka iyo dhinaca furitaanka marka siiba caruurta oo ku koraayo qoysas oo dhibaataysan ama furitaan ku jiro marka wax badan aan ka hadli doonaa sheekadeen halkan ayuu nooga sii socon doonaa Marwa Saciida Shaay ku soo dhawaa Farxiishow Saciido ma sidoo keedan kugu waca Marwa Saciida Shaay Marwa Saciida Shaay xogaa waa laga rooyaa maleynaa maxaan kugu waca Marwa Saciida Shaay barnaamijkeena aad ogeed sitmaankii hore aan sameynay aan halkan ka sii wadeena marka seed u aragtaa qoysaskan iyo isbedelkan iyo caruurtan oo ka dhasho familiyadan oo furitaanka dhaxmaro ama isbedelkan loo baahan yahay maxay tahay horta waxa fiican xaqiiq ahaan horta ku salaamay haddaan u soo noqdo su'aasha ay weydiisay mid ana ay qusayso waxa tiri Saciido Marwa ma kugu waca Marwa Saciido waa laga rooyahay iri I don't know for some reason I feel marka dhado Marwa marka tiraahdo islaan meel fadhida ay muuqanaysa laakiin wax aad u fiican waa fahmaya ma inaan barto waa asbaraya bal xooga Marwa Saciida ina ahay waa asbaraya anyways programka kii horeeto aynu ka wada hadalnay ku saabsanaa familiyadii dadka qurbaha imaaday dhibaatooyinka furitaanka waxay ugu badan yihiin maxaa la isku furaa maxaa la isku furo waanu soo taabanay meelo badan ayaanu ka soo taabanay hadda right now waxaan maraynay markii familiyadii oo kala tagay ama inay kala tagaan qarka saaran caruurta yar yar oo soo koraayo hal jirka laba jirka saddex jirka iyo maskaxdooda ciyaaladu waxay ka imaanayaan environment oo ilaa iyo beginningka ilaa iyo endiga dib jiro maamadii cabaadkeedii iyo dhibkeedii iyo qayladii guriga haystay iyo odagii meesha xataa meel uu kala dhuunto ma labadooda faday wada hadlayaan ilmuhu waxaad odagii habartay tafta ku kala dhagan yihiin waaba saddex qolo iska soo horjeeda oo meel uu kala dhuuntay ma laha waxaa tiri last showgii haddaan soo dhaafnaa waxaa tiri qolol yar yaraa la iskugu soo xiray meeshay ku wada jiraan chemistry kama dhexeeyo caruurtaana la wada burinaa marka صح كيمستري iyo waxa soo dhan waxa keenaya labada qof sida usoo sheegay markii ay isguursadaan anaga culturekeena qaab la isku guursadaa صح waxaan dheerinkan oo la dheed gareenayo waayad waxa arkaysa dad hadda waayahan dambe dhowr sano wada socda oo isbartay oo is ciyaar bartay oo is af bartay oo sheeko bartay oo xiisaba ayagoo isku qabin bay isguursanayaan maxaa keenataas dayrin oo American waa normal style caadi waa la dheed gareenaya gacmaha la isqabsanaya sida caadiga ah ay sheekadu noqonaysa waqtigii hore waxa jirtay gabadhu xataa ninka iyadoo arkin in lagu meheriyo hadda meeshan aan joogno badanaa waxaan ka hadlaynaa waa qoysaska dhisan qoysaska dhisan waa qoysas already isqaba oo wada ilmo oo yani ilmo isu dhalaayo oo dhibaatooyin ka dhaxayso dhibaatooyinkaas oo dhan marka la isku keeno oo all the issues isku imaadaan dhibku wuxuu ka imaanayaa orakat Okay. I'm sorry. Okay. I can't حقله هذا. قفت على confusion. I can't حقله سعيدة. أنا كنا قندونا عرورتان يرير قوسس كان إسفراي. قبل وحاجران أو أرتور قناة سكدي قبل. نقدر بلده. وحاجران قبل يرير. oo aanan da'dooda aad u weyneenin oo yaraan ku guursaday hal cunug laba cunug saddex cunug dhalay ayagoo ninkii qabay jecel u haayo oo noloshooda fiican somehow ninkii ka tagay naag kale helay ama relationship-ka naagtan labada cunug dhashay ma rabo marka gabdhahaas oo kale frustration ku jiro caruurtana meeshan ka dhashay aan age-kooda 30 ilaa 35 jir ah nimankii 35 waa qof weyn معناها consider ماركنا أنا كمعناها مركز كيران ولقي ما دافنا صدق نشان جرا anyway سمعنا دانها صح مركز قبلها أو دادير أو المها يرير كورينايو أو full time كشقيو مستقبل كعرورتان دبعتها حتى هو إذا مركز depression كشو ننكي إيسن كفلانين أصلاً إسكده يرى إيش كده عملية أو كده ناكل كراعي relationship كاسو كلا سدو أركته المهان يرير أو جور كانوا كل شيء وهو يده حناقسن أما أبيها لوجو تقول حنا كنكرت على بدر نعبه سدو أركته furitaan kan dhaxmaray qoyskan ay koosan filanayeen almana ku dhashay
horta qisan aan ku haya insha Allah qisan ka sheegay arintaas anigu aan indhahayga ku arkay I'm ready isha taamid waaye haye waqtiga labada qof ee isqabaan waxaa la fiiriyaa furitaanku wuxuu yahay waa maslaxo marmarka qaarkood xal baa loo arkaa sababtoo ah dhibka familka waxa ay ku nool yihiin nolosha ay ku nool yihiin ama ilmahan ay ku nool yihiin waxa uga khayr badan in labadan qof kala tagaan okay ayaa uga khayr badan labada qof dhibka ka dhaxeeya ilmihii uma roona labadii qof uma roona yani in fact waxa laga yaabaa mushkilooyin ka waaweyn environmentigaas inay u keento ilmaha iyo reerka inay u keento inta aanan tan baddaan aana gelin let me tell you the story okay ayaan dhaweed waxaa soo wacday maamo Soomaaliyeed haye maadaama anigu juvenile justice-ka la doortan ku jiro ha waxay maqashay juvenile justice-ka iyo waxyaalaha inaan ku jiro way soo wacday waxay ugu tiri eedoy gabar qaraabo iigu aadan qaraabo iigu aadan oo gabar yar ah baa dhib haystaa waxaan idhi maxaa dhacay waxay tiri eedoy mid inkaar qaba baa iga baana gabar naga guursaday bay tiri habartay ku leedahay habarta igu leh Ay. ana igu leedahay Okay. gabar buu naga guursaday gabadhii wuxuu ku sameeyay waxa isla gaareenba laba ilmo yar oo midna 3 sano jiro midna 1 sano iyo bar jiro bay haysataa asagay u dhashay asagay u dhashay okay lama joogo tiri talaag buu iska saaran yahay ilmahaas uur ku qaaday oo iskaga dhashay habeen u yimid un ma ogi ma garanayno gabadhaas wuxuu tiri ma biisho wuxuu soo diraa asaga ma biilo gabadha asaga gabadha ma biilo waa qabaa gabadhii ilmay u dhaloosaa ma biilo gabadhii okay waxaas oo dhan waa iska sheeko waxaa ka daran mid Soomaaliyeed oo kaleeto oo dhiban oo iyadana sidaas oo kale ay daris yihiin bas afdhaafeen ha markay is afdhaafeen waxay sameysay 911 ugu wacday kan kala wacayso tii dariskii Dariska. aawacayso waxay tiri naagtan way waalan tahay mindi bay ii haysataa ay sheekadii mindi baa gashay gabadhii booliskii ayadoo gurigeeda ku jiro oo ilmaheeda haysata baa booliskii ordaa u yimid booliskii markuu u yimid way fiirisay albaabkii booliis qofkan luqad ma taqaano wadanka wax badan ma joogto inta joogto waa inta ninka la joogtay ninkii lama joogo qof iska afgaaban waaye dad kala ma taqaano waxay ku dhagtay cunuga ilmihii xunka ma jaqaaday halka ku dhagtay ay gabadhii oo askarta u timid tii askarta u timid Okay. beebigay ku dhagtay nimankii ay ku qaylisay marka booliskii waxa iga rabtaan gurigay ka baxa waxay dhaheen we need inaan waa lagu soo dacweeyay ilmo yarna waa joogaan violence baa halkan loogu sheegay guriga inaan baarno waay haye gurigii ay baareen tif ilaa iyo cirb waa la baaray wax dhiba waa laga waayay oo maxay raadinayeen markaas u malaysa mindidii laagtu sheegtay iyo Ah, wax xabada iyo wax violence ah maadaama ilmo meesha joogaan Ha. ayay raadinaysaa gabadhii marka waxay samaysay way naxday luqadii ugu jawaabtana ma taqaano ilmihiin in laga qaadanayo dareentay way cabsatay way ooyday way dagaalantay way girirtay ilmihii isku dhajisay haye ilmihii markay isku dhajisay nimankii way fiiriyeen waxay dhaheen qofkan sidaan unaga noola hadlayso qof violence waay waxaa la sheegaya waxbaa ka jira just waxaa laga arkay actionkeeda actionkeeda ilmihiina waa ku dhagan tahay nimankiina way la dagaalaysaa waxay leedahay naga baxa 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 af Soomaaliya ku leedahay baxa waxaa dhacday gabadhii way jaabeeyeen baabuurka dabadiisa ku riteen waa la xiray waa la waday ilmihiina waa laga watay haye ayadii waxay sameeyeen waxay jiq ku siiyeen meesha mentalka meesha oo maskaxda dadka maskaxda dadka waalan baa la geliyey waxaa la yidhi naagtan way waalan tahay sheekada xabad kuma daraaye dhibic ilaa ay dhammaad anaa taagnaa wow waa la waday waa la xiray iyada maya waxaa la geeyey meesha maskaxda irbadi iyo waxaa lagu duray daawooyinkay ku bilaabeen daawooyinkii waxyaa lagu duray la maalin markii ay joogtay maalintii dambe hadday qof aan luqadiina garanay ilmihaagiiya usii jeedo sii socda oo gaala sii wadato meel la geenaya aada garanayn cid kale kuu joogtay adigu imagine taraamada intaa la eg laakiin dhibka jira waxaan waa fahansanahay waxaa ka wadid qoysas badan oo Soomaali waxa aad ka wadaa oo da'yar oo ama gabadhan oo kale wadanka ku cusub ninkan intuu guursaday oo meel kaga tagay tarogaas iska saaran yahay 2 bil 3 bil 6 bilood oo iska maqan hada waxaba ka daranba ha wad su'aasha marka gabadhan marka waxaad ka wadaa caruur badan oo waxaa jira oo ku dhalanayo qoysas noocyadan ah oo magaalada Minneapolis degan ninkii marka saas oo kale waa maqlay nimankan sii socdo oo naaga kale meel kale ku guursado taraagaab idilibani macnaheeda ilmahan iyo gabdhahan yar yar oo nimankan aaminay oo u arkaan in ay guri joogaan caruurtan korinayaan dhibaatadaas maxaad ka dhihi lahayd Saciido dhibaatadii aan ku bilaabay markii hadda la soo dhaafay iyo tan waa isku combine gareynaya laakiin let me finish qisada yani dhibaatadu meesha ay ka imaanayso that's why ayaa sometimes guurka inuu furitaanku uu xal yahay gabadhii waxaa dhacday markii sida ay dhacday reerahan qaraabadeeda ay wactay
ninkii wacdi waa halkaas ku xirnay tiri wuu imaaday maxkamad baa gabadh ila galiyay laba bari ku jira camal maxkamad baa la geeyay wuu yimid markuu yimid waxa la wareystay waxa la yiraahday maxaa tahay ilmahan aabahooda ilmahan aabahooda tahay waaba la baaray qoftaan ceer iyo section 8 iyo adduun baaba quudanaysi ninkaan uguma qorno dhibaatadaasna waa dhibaatooyinka ugu badan oo xalka looga baahan in laga helo sidaa markay dhacda gabadhii waxa oo ninkii uu arkay in asaga la soo dabagalayo meeshii wuxuu ka yiri listen ayadana waa furay ilmaheedana ma rabo hida road gabadhii dhibkii kale waxa uga darnaaday ninkii meesha uga dhaqaaqay ninkana labada indhood idhaw u yahay laakiin dhibaatada ku jirto waxa mushkilada markii oo maxkamadda la geynayo system Mareykan ku jirta waxaana warqad ku saxiixnaanin inay xaaskaaga ahaanin iyo waxyaabo badan oo gabadhan hadda sheegaysay ceeray qaadanaysay section 8 qaadanaysay ninkan uu ma qorno inuu ninkeeda yahay marka waxa qasbanaa iimaanayso in la dhaho ilmahan inaad dhashid waa inaad cadeysid ala yiri waaba yiri wala laga qaaday DNA DNA soo markii in laga qaado ma ahayn hadii DNA ku soo baxo ninkan waxa lagu leeyahay intaas oo sano ayaa ilmaha la biilay soo shubla la xiro waa soo shubla buu qaaba ma rabo marka waxa dareemaysaa qeyr mas'uulimada inta la dadka ay ku jirto nin ilmihii asaga ilaahay ka beeray ya oo uu dhalay yiri ilmana ma rabo naagtaana waa furay ilmahaasna waxa qaadanaya state ka qaadanaysa naag cadaana bal qaartay loo dhiib waa kaas ilmihi naag cadaana haysato ilma waxay ahaayeen guriga waxa li booliis markuu imaanay quruxda in nadiifka sida u yahay waxa ka daran ilmaha inta ay egin gabadhaas u kasatay halkaas la galiyay ayadii waxa laga dhaadhiciyay waxa la yiri you have to ina ogolaatid ina mental u jiran tahay that's the only way waxa lagu daweynayaa couple of months ilmaha lagu soo celinaa she has to inay saxiixdo maalin walba tagto meeshaas ay saxiixda rightskeeda ay dhibto marka dhibaatadaas oo kale wiilashan gabdhahan yar gursanayo oo caruurtan dhalaay kuwan ay sheegaysid boo language-ka aqoonin waaba fiican yahay kuwa fahansan oo afingiliis ku hadlaan wax iska celin karaan oo markay arkaan ninkan inuu sii socdo alaabtiisa bacdiisa madow ma dhahan bacdiisa madow xiraan ka daba tuuray sax laakiin kuwan ay sheegaysid oo systemka fahansaneen oo caruurtan maalin walba ku dhibaataysan oo ayaan dhaxay subxaan maqlay gabar Soomaaliya saddex anug laga qaatay iyadana oo dhibaatada ma aanan fahansaneen laakiin ilmihiya laga qaatay markii heerkaas ay marayaan dhibaatada jirto waxa waaye ragga Soomaaliyeed waa inay ogaadaan sharci wadankan sharciga lagu socdaa hadaa dhahdid ilmahan aniga ma dhalin ay habartana tiraahdo sanad walba cunugan dhala aabihiisi boyfriend ku dhalay boyfriend ma ku dhashay $100 kala lagu dira marka dhibaatada see lagu saciido see lagu xaliyaa raggan la dhahay war hooy ilmihiinaan korsada shaqo aada caruurtiina ka warhaaya because dad berri wax yar qalad soo bisid gaalada ay qaadanaysa caruurta reality-ga marka loo hadlo su'aal aad u fiican ay weydiis horta reality-ga marka loo hadlo dhibaatada ugu weyn waxay ka imaato dumarka okay let's go to the maanta dumarkan jajaraya idageyso dibka ugu weyn wuxuu ka imaaday waxay ku leedahay ninka shaqada naga tagsin iyo waxa naga fuul naga daa waxaan baad shaqadan iyo wax kasta wala naga jartay maxaa laga jartay ninkii haduu damco inuu isagu xataa shaqo caadi oo mushaarkiisa isaga bixiyo waxayo balaay rabtaa ila laab balaayada ayada rabto waxay ku leedahay mar rabo caafimaad baa la iga jartay ceerti baa la iga jartay food stamp-kii aan meelaheegaas xalaalada uga sarifan jiray baa la iga jartay weegi baa la iga jartay ma fahmay daykeerkii baa la iga jartay turkiga meesha anigii buu cub igeliyay wuxuu soo qaatana anaga ma naga badna marka waxa ilmaha ila haysto lacagtaana naga badan aan wada biilano war kuba sheegay lacagta baliisi badanaya laakiin ayada ma ogtahay inaysan ka fikireen mustaqbalka caruurtan yaa u sheegay mustaqbalkooda ma dhiso saay mustaqbalkii ma dhiso saay marka maxay yani waxa waaye reality-ga marka loo hadlo waxa jiro xataa waxyaalaha aan meeshan ku baranay oo awal laga xishoon jiray waa baryada qofka inay badato war meel kasta oo hadii maanta leeyahay kiniisada heblaay iblaalkaas ku taalaha free cuntay maanta bixinaysa habar walba gabasaarta xirxiranaysa meeshii aadaysa waxyaalaha qaar ka inaa mar kasta baryada waaba laga fiican yahay qofku waa inay xataa qofka dumarka ay si kasto iyadu wax ku saari kara murqeeda ay ku soo saarto ninkii asaga ayaa biilka asaga mas'uulka ah markii aad tira naga daa xeer taxi fulo loo ber intuu taxiga uu leenka saacad ku jiro mid kale u sheekeeyo frustration noqdo mid kale intuu u sheekeeyo yiraahdo war heed adigu meesha frustration ku tahay
maya anigu dee niyo meeshaas meel kala xalud iga bisasha halkaas aadaya waa runtaa waaye meeshaan ana u kasay gabdhahan saa sheegaysid oo aad dhehaysid ay ka dhuxanaaqsanta sometime qaladka gabdhii waa saari karnaa haddii gabadha ay u aragto inuu ninka qaldan yahay intay ay waddankan waxay qabaan wax consultant ah I know masaajidi badanaa jiraan magaaladan oo familka isku keenaya oo jecel inay arkaan say ula hadli lahayn masaajidi badan aan aqaano oo dhexdhexaadiyo oo isku soo celi hadday kala tagayaan laakiin kuwa waxaa jiraan maskaxdoodaba tagayba saa sheegaysid gabdho waxaa jiraan oo nimankooda weli jecel u hayo ama niman waxaa jira naagahooda jecel laakiin jecel freedomkooda inay wataan marka gabdho waxaa jiraan fahmay in ay dhahaan look at me waan shaqaystaa wax waan bartay caruurteeda wax ka maqan ma jirto ninkaana ma aragtay hadduu baxaayo rabo inuu soo dhafro habeen walba uu sii socdo hore ha u baxo ma rabo kuwaasoo kale maxaa dhihi sheekadii qaadka miya maya qaadka waaye taasna waa geli doonaa so marka nimankan oo ilmahooda dayacaayo gabdhahana waan ku noqon doonaa maxay tahay oo aysan maanta waxaysan u jeedin labiskan la labisanayo suudkan quruxda badan la xiranayo iyo eventyada laga qaybgalayo ilaa hadda ma arkin hawo waxay haystaan markii sidii hadda maalintii hore aan soo sheegnay islaantii ay tiri war xataa markaan mid dhakhtar iile ku kalaan wadanaya odago ilmaha gaaju iga dilaya ama dheebarki alla ilmihii rash baa iga dhacay dheebarki ma laga bedelayo oo odaga ugama tegi karo waa ku rafaadayo ama maanta inaan waxaan rabaa inuu aan waqtigaan raba aan soo noqdo ay samayso ninkii markuu shaqadii ka imaado oo gurigii u imaado quiet ah oo islaantii iyo ciyaaladeeda israaceen ya xoogaa markuu meesha fadhiyo muxuu booran buu noqonayaa waa u labisanayaa wuxuu aadayaa meelaha ummaddu aado laakiin gabdha nimanka saan sheegayna waxaa tiraahday section eeday haysataa tan way dhibtay mushkila kuma jirto kalaan ba aadaa oo laba cunug iska haysato guri weyn deganoo aan ka hadalna wiigi hadda gabdha ayakana waxaa jiraan u arko hal cunug laba cunug iska haysto oo single mother iska ah niman shaqaystaan oo shaqo fiican haystaan ama xaas ha lahaado ama 20 cunug ha u haayaan xaasaskooda kale aanan u jeedin laakiin fahansan ninkan waxa ka maqan chemistry-ga ay sheegaysa soo marka ayada kuma aysan fakirin xaasuu qabaa caruur uu leeyahay waayaad aga soo wadaysaa gurigan aad gurigaa u keensanaysaa sababta waxa weeye reality-ga marka loo hadlo midaan ayadaba mid baa ka tagay okay that makes sense but like waa laga tagay oo mid kala ana kala haddii rabta haysato ama yar haysaninba mushkilada sida aan kuu sheegayo qof rabanin meelaha iska fadhiyo qaar iska cunaayo ma shaqaysto oo ma jiro ninka marka aragto inuu dhaqdhaqaaqaayo reerkiisa u roon yahay shaqaysanayo ya biilkiisa baxsanayo mas-uuliyadiisa dareemayo qoftaan ay helayna dee marka xoogaa intaas dhan loo sameeyay iduna iskala daadsatay tiri jannaan ku jiraayo nin fiican baan qabaayo wax iga maqan ma la waa jecel yahay oo halkaa iyaduna ii seexatay oo maryo ii kala daateen sax ya waxaan ogahay kale hadday naagta ida iska taxdirto ay ogaato ninka nolosheeda soo galaayo see ku ogaanay ma ogaan karto laakiin way program waxay dejisanaysaa oo ah in wixii ay soo marto hadduu qaldanaayo ninka nolosheeda soo galay macnaha waxa u dejinaysaa haddii adiga maaragtay aad tiraahdid laba cunugaan soo dhalay jidkii waa soo martay ninkan awal wuxuu iska ahaa nin iska socdayoo tii isku dhacayso qurxoon oo tan kasii fiicanba oo meesha martay inuu arko that's the next girl tanna ay og tahay inuu waxa sameynayo so marka ayada waxaa laga rabaa in cayaal suuqnimadan nimankan oo haddaan rabnaa dhahri karna cayaalka xaafadda oo meelahan aan ayada u arkin inay tahay ilmaha hooyadooda ama relationshipkan aan daacad wahayn so ayada marka waxaa laga rabaa relationshipkan kale ee geli doonto nin iska fiican aroonkeer hadduu ka weyn yahay 10 sano xataa laakiin nin shaqaysanayo oo degan oo niman badan oo magaalada waxaa jiro saciida oo shaqaysto business fiican haystaan oo raadinayo qof la sheer gareeyaa nolosha ama caruur ha haysata ama haysanin marka kuwaasoo kale naagahan maanta dhan raadinayo the ones ayada u fiicnaanin nimankan cayaal suuqa ah macnaa cayaal suuq waxaan ka wadaa rag waxaa iska jira oo maanta dhan labisan oo dharka ugu dambeeya xiran oo meelaha taagan marka aad soo jeesatidna kan adiga ku rabo aad ka sii jeesatid u noqonayo dhahayo dollar si aan kafee ku gada caawadeedan wataa so kuwaasoo kale maxaad dhihi lahayd ariga arrinta hadda soo taabatay ee ah niman waxaa jira fiican oo shaqaysta
wareerkooda beenanayo oo qof ay life la qaybsadaan la sida iyaguna u laayihiin ayay gabdhuhuna sidoo kale ay u yihiin okay laakiin the bottom line waxa waaye ninka xamaaliga ku jira naag aqli lama ogi nimankan yararka ah oo sududka xiran oo meelaha isdhaqaajinayo oo kuwan ay uga dhagan tahayba indhahoodu baba u jeedaan the reality-ga ma arkayaan ninkan yarka arkan xabadan yaa isku agso wareelada midkaan ay uga dhagan tahay wax uga hooseeya ninkan ma oga in suud ku taagano baabuurka ugu dambeeya duu rabo wato wax uga hooseeya waxa la ninkan waa nishidan waxaan xagu ka keenay ma fahanto oo shaqaysanaya ma fahan aqligii hoose sida lagu fiirin lahaa ma jiro qof mid kale ilmo Mareykan ku haysata hal ha noqdo laba ha noqdo saddex ha noqdo Mareykan ku haysata systemkii aan wadankan fahmin wax sida loo kala habeeyo ama luqadii aan garanayn sida xataa wax xuquuqdeeda ay u raasta aan garanayn oo sida maal subaxiina iyaga sii jiidaysa habeenkiina soo jiidaysa nimankan aad sheegay sida business kale ay xamaalanaya shaqaysanaya life ka haysta صح xagee ku arkaybo موجود ayadoo yaabano bufis haayo oo hadana ay ku jirto hadde nimanka waa qurux badan yahay tolo hadaa maanta la bisato xataa ma laga yaabo inuu ku soo fiiriyo okay oo wax soo jaleeca la raadinayso ya way la bisan hadee banaanka u baxdo kuwii la bisnaa la raadsan mid kale waxa soo batay oo soo baxay meelaha la iskugu imaado dadku meelo gaar ah jiro oo la aado laakiin eventidan adigana aad tagtid ana aan tago oo laga hadlo Soomaaliya waxa ka dhaco iyo politics-ka oo wadankeena waxaad u malaysaa in laga xukumo Minneapolis politically waxa ka dhaco meel kasta aragtid waxa laga hadlaa kan xildhibaanka iyo whatever wasiirada iyo ragga Soomaaliyeed waxaan arkaa 9% way joogan صح most of them xaasasay qabaan caruur ay qabaan why aysan ugu fakirin aan caafimaadku u fiican yahay xaaskaaga labisan oo kula socoto ina meesha wada imaatiin aad ka hadashiin dhibaatooyinka wadanka ka jiraan ama aad wada tustaan halkaas hadaad 5 event ay jirto sitamaankan hal event ayada soo wad ku faraxsanaa ku tus community-ga ina xaas leedahay inaad jeceshahay inaad ku faanaysid صح laakiin maxaan u arkaa event kasta aan tago nimanka kaligood wada socdaan deena lagu leeyahay kulli xaasasay leeyihiin ha Soomaali caado waayda war maxaa ka daba dhigay war iga har daba taagnaa oo ninkan baaba nacib saan noo daba taagnaa kaas guriga adii ilmaha guriga uga tagnaadana may daba socotaa oo baka caroosa asagiina ma baraba asagiina hadii uu dhaho meel baa jirto raadayay soo baxdo iyada ku dhihi lahaa ciyaalka wax looga taga ma laha lacagtii ciyaalka lagu bixin lahaana xoogaa jiiray ku jirta ilmaha lagu sii hayn la mogta marka inuu asagii hayina iyada heeso ko fikrad kale oo waxa jirta ah banaanka naagtan ay kaaga bixin okay oo hadii dhowr jeer ma yahay event way barane marka daba ma celin karayso waa ka dul baxay aroos camlan bar kasta oo meel isugu imaata inay aade ilmaha maxaa ku waalay gurigaaga joogo ilmahaaga heeso dalale ma fahante marka sida aad sheegayso labada qof waxa ay u baahin oo baahida jirtaa waxay tahay labadan qof time inay wada qaataan hadii chemistry-gu meesha ka maqan yahay oo labadan qof ay sheeko garaneen oo saxabkay u sheekaysan laayeen iyo waxaba laga yaabaa xataa qofkaan dhibaatooyinka arka ugu waaweyn waxa kamid ah labada qof erey kasta isku dhahayaan xoogaa waa ereyo iska soo hortaagan isku macnaha isku labada qof iskuma ahano ya yani isku xumeey kama aha nolosha dhan baaba waxayba hadalkoodii dhan baaba wuxuu noqday far ku taag صح hada waxa maxaa u sameyn weeyay markaas war anagana waxay maxaa oo adigu waxay ma sameeyay oo adigu waxay labada qof ma laga yaabo alla ma sha Allah wax fiican aa sameeyay maanta arrin fiican aa sameeyay ma gabadheeda gaadhaan wax qatarka ay sameeyay ma jirto wuxuu dhahayaa waliga baad wax wanaagsan sameeyay kuma arag boo darab ku dhahayaa waa macnaha iskhilaafaan discrimination waxa sheekadii marka waxay noqonaysaa discrimination ma aha ii sheeg hadalka chemistry marka siciido hadda aan ku noqono dhinaca oo aan taabanay sitimaanka hadda la soo dhaafay oo ahayd gabdhaha oo la qabo ama oo single mother ka whatever oo dhafra habeenkii shiishada meeshan sheegayna aadayaan ama aad sanooyinka hadda la soo dhaafay gabdhaha waxay barteen jaad in la cuno iyo gabdhaha overweight ka noqday oo aan obesity-ga sii dhaafay oo kala jeclaan mid kale aan rabna inaan ku sii dhaafi doono hadda ka hadli doono waxa waaye ragga Soomaaliyeed qaara ayakana iska fakaday waan cunaa cuntada waa bariis iyo hilib iyo whatever habeen leedna nimanka Soomaaliyeed maxay tahay oo ayakana si weynaanayo dhinaca dhaxda aanan yareenin marka dhinaca hadda aan aadno gabdhaha Soomaaliyeed habeenka dhafra
gabdhaha habeenkii dhafra macnaha dhafarkan maxay tahay iyagoo xaasas qaarkooda ama aroos aadaan ama oo dhafarkan iska batay oo shiishada la aado ama jaadkan hurdo la'aan baa ku dhacday hurdo la'aan lagu dhacaayo iyo overweightkan sii socdo oo gabdhihii ayakana oo eedeynayna raggii maxay tahay taas wiiga hore waataan kasoo hadalnay sax horta anaga Soomaali community haddaan fiirino cuntadan cuno dhan waxa ku badan borotiinka iyo waxa ku badan carbohydrates ka ugu badan fatka waliba saturated ka aad ugu badan hilib ariya cuna iyo suqaar bal fiiriya subax xala suqaar la sameeyo duhurkii hilib ari iyo bariis la kariyo habeenkii chicken iyo aduun la sameeyo pasta macaroni iyo pasta la kariyo shaahi sokor baa ka buuxda juuska sokor baa ka buuxda fruitkeen waa xabad banaana oo lagu dhex cuno bariiska waxaa la dhan marka la fiiriyo wax walba cusub badan baa ku darsanaa cuntadeena oo dhan waxay ka samaysan tahay waxaas taa waa mid tan kale waxa waaye qofkii waa fadhigiisaa badan oo intuu ama soconayay ama uu exercise sameynaayo guriga uu ka baxaa hadduu guriga jaran jartii baa sugaysa waad deganaysaa jaran jartii way ka deganaysaa gaariyay fuule waxay raadinayaan baarkinka ugu dhow meesha u socoto kan ku soo dhagan oo dee 2 tilaabay qaadayso qofkii marka socod ma jiro exercise ma jiro wadankeena markii la joogo waa la socon jiray exercise qofku exercise anagu ma baan aqoon yaa badeeba ninka ugu soo dhaw mooto yar i haystay naag mooto lama saar jirin ma fahanti waa qofku waa ul weyna dabil bay halka dhabarka saarato halka jeegada dhididka intuu ka baxo wuxuu ka dhigi jiray cirbaha normal bay ahaan jirtay caadi bay ahaan jirtay ciyaalka yarka waxa arkaysa halka ayagoo sida u wada cadcadahay oo xalada cilmaha maxaa ku dhacay qaanjeer waxa soo dhan waa dhididkii wixii waa ka baxaya I love it halkan wax ka baxaya ma socoto asaga ku noqona qofkii waxa lagu leeyahay Allah heblaay waa cadaan jirta maxaa ku dhacay de waa qof aab ilaahay wasaqdi iyo adduunka wixii ka soo bixi mayaan asaga ku noqonayaan midabkiisi waa ku noqonaya cuntadii faadku waa ka buuxa ma fahanti haddana most of wadankan aan joogno waxoodu natural ma waa wax la wada bacramiyay sax ma fahanti oo furunjeer haddana ku jiro wixii dhan marka la isku daro oo ay isku yimaadaan fadhigiina ku dadho buufiskiina ku dadho dhalowgiina ku dadho uurkiina ku dadho maseerkiina jiro nimca sagaysa sheekadu u jeeda marka all that marka isku imaadaan qofka waa uu buursamayaan waa buurnaana ma ogi qof waxa dhaar cunto ma cuno hal mar baa wax cuna way horta ma maqlaan waana si bararaya waa si fakanaya ay ku dhihin waa laakiin saasay u dhahan badana Soomaalidu waa arkay de waxa waaye dhakhtar baa wuxuu u yeeray snack baa waxay tiri cunto ma cuno habeen imaan waa si bararaya wuxuu yiri cunto ma cuntid may okay maxaa isee wax cunta tiri bal maanta waxaan cunta tiri buu yiri maanta waxaan cunta tiri markaas waxay tiri saakay aroortii abdi hebel wiilka yarka ah markaan cuntada afka u galgelinayay sax yar baa ka soo haray عليها هاف إنه كسر مكت وحير بقى كسر وحي وان عني بدي وحبنا أنتي بان عني أوكي برقدي مرة هاد جلاس عنو كتجيب هذا نعبي مركا حلقة وحينا بكير جوس نعبي أنت ده مركان كرينا يي سحن بان حبت عن جلا كله عنو You're good I love it okay go ahead سحن بان حبت حل حبوا عن جلا وان ساكو إير markii la qadeen digsiga in yar oo harharayo ku haray laaladii iyo baan kala fleefay ma fahanti fleefay hay baan ka wixii kulaada wax yar yar oo ilmuhu ka hareenay aani wax uu yar aan hiinsaday ma ogi ana boorihina waa ku jira boorihi durba ku jira because ilmo badan aa guriga jooga joog okay intaas oo dhan markii la isku soo daro marka oo miis la saaro waa dhowr saxan imidku waxa soo socda ay caadi hal mar baan anigu wax naftayda ah aan gurtay ay ku dhihin in kasta oo maanta dhan mooska xabad jabki ilmaha kaara afkay gashan marka iyadu markaas ay uma xisaabsana maraqa ay dhamin uma xisaabsana xabada hilibka way cunin uma xisaabsana odaga markay wax u gurayso intii gacanta ku harto way sii cun uma xisaabsana wax u xisaabsan ma jirto uma xisaabsana waxaasoo dhan ma xisaabsana halkii saxan oo ay guratay baa u xisaabsan ma fahantay bakeeri haaf markaad saaka mid ka cabtay oo mid kale haaf duur ka cabtay oo
already شاهي ما حساب سنة اوكي حوغا مركي دكسي سو دجي صباح حبد بكيري انت عليك بس شوانيسا او ما شاء الله وixii markii la isku dadaro waxa adduunka jooga idagu cunto badan laakiin iyada sahankii lama muuqdo ee nafteed u guratay okay taasna u sii dheer waxyaabaha kala guriga ka dhici doono ay ku mashquulsan tahay oo iska badhaafba depressionka oo maskaxda bini'aadanka oo dhahayo waxaana siinayo macnaa ida dhiminaysa sheegaysa waa wax ay u aragto haday dhibaato ka qabto furitaanka ama cura dariskay u leexanaysa waxa la leeyahay naabal inta yarta afka sii gasho may wixii uma xisaabsan qofkii okay ma fahanti waxaas oo okay go ahead waxaas marka isku daro oo la isku soo xisaabiyo oo wada ay cholesterol yihiin carbohydrate waxa markuu burka buuxo bariiska burwa canjeerada burwa burka cad waay wax kastaba faad bay ka samaysan yihiin baastada shaahan la cabaaya aysan ogeenin maanta dhan ay ilbihii markay saacadaan habeen barkii ay mid caanahaas naasi wax siinayso saxankii odow way u sidhitay oo ka sii saxday intii ku hartay way sii cuntay galaas caano intaa la egna way sii cabtay waxaas oo dhan lama xisaabinayo maskiin hataa liinta harta oo inta wax lagu miirmiirto weelka marka la dhaqayo intay qaaratay waxay kala baxaysaa xataa waxa ku dhex jira waa cunaysaa dii waxaas yaa xisaabi mid walba waxbaa ku dhex jira moogta waa reality marka la waxaas dhan maxaa keenaya wada meelaad u socota waan fahansanahay waxaa keenaya oo habeenkii ay sii baxayso ay dhafrayso bahashi kale geesta ka wada ubadi waxaas dhan marka la isku daro qofkaadu ma caafimaad baa ka sugin wuu bararaa waa isdhaafaa xisaabtan kuma jiro because wuxuu ku leeyahay war anigu waxmaba cunaba waaba iska bararaya waxaan waaba barar bay ku leedahay soo marka waxaa wada in denial waaye ma aaminsana iyadoo waxyaabahan yaryar ee cunayso say usoo kacday ilaa habeenkii intay ka seexato waxay kala xisaabsanaysaa halkaas mar ama ay maqaayad tagto cuntadaas ay u fariisato ama saxanka ay gurato kaliya u xisaabsan inay cunto marka waxay leedahay muraayada markii hor istaagto war hal jab hilib markaad oo aad cuntada karinayso bariiskii markaad dhowr jeer qaado inaad ku xabaxayso laba xab hilib cabaan ka joogto bataata xabada dhadhamiso cabaan ka hilibkii dhadhamiso already waxa waa calooshii jirkii waxa nafaqaysiin heloosa okay marka tan oo kale markay gabadhu ku dhacayso waa iga qosolsiisa maanta you are amazing marka maskaxdeeda muxuu yahay ma problem guriga ka socda furitaan ma ku jiro ma dhafarkan aan rabno inaan ka hadalno ay sameynayso habeenkii ay sii socoto depression waa waxaan markuu qofka subina cuntadan uu cunayo waa emotional oo qofka bini'aadanka uu meel kale wuxuu ka helaynin cuntadan qofka ka celinaya yac dhahay ma jirto ilaa guriga asaga yaa oo maxaa laga celiyaa waa dhadhamis marka saxankan waa dhaqaaya saxanka waa dhaq saxanka intaas cadaab baan gamana waxaan inta waxna ka tarimayso bad laakiin ninkeeda waxaan u jeedaa inay sameynayso xaguu uga jeedaa anigu xaguu jooga ana ma u jeedo qoftaan markaan fiirinayno isbedelka qoyska ma waa maqan yahay hadduu joogana maskaxdiisu ku maqan yahay iyo wuxuu soo furay boostadii moogta waxyaabihii ku korontadii 300 hiidkii inshuransigii baas taleefankeedii wixii buu kala gurayaaba marka taas ma leedahay waxa keenayo isbedelkan oo asagana uu u jeedaa gabadhan emotionalka cuntada ku jirto she eats her feelings iska dheh waxay dareemayso pressure-kan saaran cuntadaana waxay la noqonaysaa wax relationship ay la sameynaysaa ay u aragto conference oo comfortable ay u aragto marka ninkan uu arko qoftaan inayba baxday ee relationship-kan cusub ay sameysatay jikada isbedeshay marka asaga maxaad leedahay markaas oo kale intuu drifted uu kusii noqdo intuu sii aaday wuu sii fogaanayaa okay wuxuu usii fogaanayaa waxaad yaraanayso labada qof markay communicationkooda uu yar yahay aniga adiga haddaanan saana wada sheekaysan maanta waxa aad dareensan tahay ama anigu aan ka arko ma ogaan kari sax waay comfortable levelka labada qof markay wada hadlayaana waa inay ka dhaxaysaa calaaqaad u ogolaanayo qofkan qof kale wixii inuu u sheego uu aamino inuu waxyaalo badan sheegi karo sax marka community dadka familiyadii marka ma dhacdo labadii qof ilaa heerkaas hadday ka hadlaan horta gabadhu markay soo fariisato oo ay u imaato qofkan waa buuxdaa waxay ku hurgufto wax bay rabtaa okay asagiina jiq waaye ayada hadduu laba kelimad ku dhaho gabasaartay u tuuraysaa
jiq waada jiq waay Oh, marka asagii waxa waaye wax kastuu qabay buu la aamusaya marra inuu furaba because wuxuu diidayaa inuu ama dee wixii mushkila ka imaanayso wixii dhani ku release gareynaysa dumar hal laba eray haddii lagu dhawo waxay dhihin inkaar buu qabaa weligii iyo allihii khayr imaba tusinba waaba ka dhaadhacsan tahayba khayrba ima tusinba wanaagba kuma haysto waan dayacnahay waxay u badan yihiin dhinaca oo cabaadka ee u badan yihiin ni iyo sidii sheekadii lug iyo laan buu iga jabiyey ma maqashay sheekadaas ma maqlay wariseed lug iyo laan ay iga jabiyey iyo laan maya dee markii dawaagil cusbaayo Mareykan iyo meelaha la soo galay sax oo dadku ay inta soo galeen inay iska sheeko tahay u maleynaya aniga laakiin ayaa gabar baa waxaa meesha ku cusbeed gabdha kale taa waxay ku dhahanaya ninkan habeen maalin aad guriga ugu dhex jirto inta cuntada u karinayso ma soo nafisido anigu galabtii halkan baa isugu imaanay ma noo imaatid markaas waxay leedahay anigu ninkaygu ma ogola inaan meelahaas iyo naagaha waxa soo dhex ma la qabaa marka tan saan waa la qabaa tu kala idiya lagu dhahaya okay yani maxaa gurigan u joogtaa habeen maalin u fadhida soo bax galabtii waa nafisnaayo heblaaya ma xisoo karisa cuntada gurigeeda isugu tag heblaaya kala maanta cuntada kariso gurigeeda soo iska saado social group wow waxay dhaheen gurigan aad habeen iska fadhido maxaa dhibkaas ninkan juqmay ani ninkeyga ma ogola oo muxuu kugu sameynayaa may odagayga aniga ma ogola kaale wax ma kuu sheegaa ninkan wadan freedom maatay wixii Soomaaliya u sheeg ninkan kama shaqeeyaan maxay san ku soo baxaa waa san lagu soo bixinaa roosanaada maya wixii maba shaqeeyaanba aadaa u taliyana hadee juq haduu ku dhaho 911 ka u wacbay 911 u wac lagu yiri so naagtii markaas waxay bilowday naagii inay raacdo dhowr jeer u tagtay ninkii wuxuu yiri wax ma ku sheegaa sheekadan gaabi sharaf baaleed reerkaaga email baad joogtay xogaa sheekadan gaabi markaas waxay dhahaysaa war ma aniga ninkii yaab qoftii maxaa ka qaldan هذا إليس نفري بلا بس ما يوحي بلوذي إنه بكبت سيبته حوجا وحسلات سيبته محاكا ودا كبت إنه أنت سيبته ده كتر تنكي ها أيه بلوذي هاي إنكي مركاسو أنت سو استعجبير وسروتش محاكا قدم نعم وانكي مركي لبودي أنت سيرادنيس داو وعدي ولا قبت حتري هل بمي حسبن كي جوا إدلي هل بمي وسمايتر دقيقة كدي وين نيكي غورغي جوجا اي سو بخسمين غورغي باي ماده غورغي markay yimaadeen maxaa jira markaas tir yes 911 come he cut my 2 legs off ya laantu iga jaray maqli jirtum ashakadii ninka lagu iga jabay yani uu dhibay ka wada maqto so look ilaantu iga jabay macnaha ingiriisi ku fasire he cut my 2 legs off etirno ninkii booliska lugaheedii buu fiiriyay ayadii buu fiiriyay ninkii buu fiiriyay ninkii markuu fiiriyay it's just crazy way waalan tahay markaasuu excuse me maxaa tiri anaga he cut my 2 legs off he beats me he waxay akhrin kartaa aqris soo markaasoo kale yaa u turjumayaa jooga meesha ayadii ayadoo dee kelimadii la xifdisiyay haysataa cut my 2 legs off kii waa xifdisanta but like in asaga advantage ku qaba meesha asaga waa waalantu ku leeyahay ninka uu fiiro wuxuu dhayo get your legs lugaaga ku wana ninkii u tagay uu hagsiyo I'm sorry islaantaada ka jirana aad take care of galeynaysa way bixin naagii baa la tagtay been baad ii sheegteen ma soconayso sheekadan been baa ii sheegteen intay yimaadeen aan ku irnaa labada lugood buu ninku iga jaray been asaga inta hagsiyeen mar dambe ha aaminina nimankiina ilmihiina haysta ilmihiina haysta macnaha maxay ka wada aaminaan gabdhaha mise askarta ha aaminina hawcina naagtan baa ninkiina aamina because sheekada waxaan ku keenay gabdho badan oo wadanka ku cusub oo taas dad badan yes oo wadankii yimid yes oo naag kale ay duufsatay oo u sheegtay been oo gurigeedii mooradeeda ka saartay baa jira okay waxa keenaya khilaafka badan waxa waaye qofka bini aadanka qofka shakhsi ahaan marka gabar ahaan xaas ahaan aad tahay hooyo tahay waa in ma miisaami kartaa life-ka iyo waxa aad rabto haddii laakiin sida aynu ka soo hadalnay oo soo sheegnay oo dhan la isku keeno oo gabadhii aysan waqti ay ku samaysan rational uusan jirin oo yani ku fikirto uusan jirin oo sidaan u sheegnay time yar oo ay meelaha inta tagto soo fikirto aysan helinin oo aysan helin dad positive ah oo nolol wanaagsan ku jira
oo horumar u socda oo ay ku dayato aysan helaynin صح haddii uusan jirin communication-ka iyada ninkeeda u dhexeeyay okay uusan jirin tools ay isticmaasho ama aqoon dheeraad ah oo ay isticmaasho meeshii aysan oolin oo intaaba ay ka maqan tahay ya wax morally u support gareynaya ama ninka ha noqoto oo ninka laftirkiisa oo loo baahan yahay moral u support gareey mogta of course uusan jirinin wixii moral u support gareynaya asaga laftirkiisu moralka meel uu ka raadsada bala isagaa moral la'aan okay moral la'aan wa yeah uusan jirinin waxaa dhacaysa labada qofkaana laba woolashiiba inta ku xirmeen oo isku yimaada inuu labada wool inta saa ku dhahan qofkaa mutujiyaan baa hartay okay woolashaasay ku jiraan albaab kasta waa kasoo xirmay waa la soo galaa waa la baxalay albaabada waaba xiran yihiin Ha. keliya waxaa u muuqata dhibaato ninkaana asagana wuxuu ku jiraa geed ayadana waxay ku jiraa geed laba geed bay ku kala xiran yihiin gurina waa wada joogaan 10 ciyaal waa isku dhex farxiyeen waa that's a depression hadda nimanka dhinacooda aan galno nimanka maxay tahay Saciida ayakana oo cuntada sida ganaayo waa waxay la aamusnaayeen de sababta aan ka hadalno raggan gabdhihii maybe furitaanka wuxuu u bataa maybe yahay nimankan oo sidii hore ahayn markii la guursanaaye wiilashan jalaqsanaayeen oo isku dhacaayay oo kala arag markii ay hal cunug dhaleen laba cunug nimankiina kala daatay maxay tahay oo is alaabta dhan meelaha cuntada de oodkac badan baa loo jaraa ayakana salmiya oodkac badan baa loo jaraa Haye. mid waxaa arkaysaa mid subax walbo maanta waxaan ku qoslaa facebooka Ah. mid baa wuxuu soo dhigay canjeelo quruxdii ka badatay anaa rabataa inaa cuno nice ya Haye. oo saa inta loo laalaabay iyadana indhaha ay leedahay ah iyo waxaa loo soo dhigay baaqul weyn oo oodkac ah markaasuu wuxuu dhahay facebook friend soo dhawaada oh canjeelo iyo oodkac quraacda ugu macaaneed baa haystaa kaale ii soo dhawaada sheeko hay marka oodkac baa la dhigayaa waxaa la dhigayaa canjeela la dhigayaa tarmuus intaa leego sukar ka buuxiyo shaahiisii baa loo soo dhigayaa meesha ma fahantay waxaas buu isku dhuuqayaa duurkii waxaa loo karinayaa hilib la shishilay iyo adduun Ah. bariis la colay Haye. adduun mooskiisii waa wataa iyo basbaaski he's happy waa loo soo dhigay Haye. habeenkii waxaa loo karinayaa asagana malawax iyo suqaar iyo rooti adduun baa jabaati iyo waxbaa loo sameynaya hay de ninkaanu caloosha adigu maxaan xagee waxaa su-aadayaan ma soo kacmiya meel intay hurdaysa xaaska intuu soo dhuunta filinjeerka ma tagamiya oo sida bateedkay ku xiran tahay ice cream iyo midda kale nimanka cheesecake ma jiraan nimanka taksiilayaasha iyo taraaglayaasha u badan okay baaquli waxaa loo boorso madow baa loo dhiibaa Haye. oo caagadaha loogu guro cuntadii waxyaalahaas waxa oo haddii xataa saxan baaquli oo salad ah iyo qudaar iyo fruit iyo adduunkaa loo diyaariyo waxbuu ka heli lahaa mogta kulli waa wada hilib iyo adduun baa uga buuxa waa loo soo dhiibaa tarmuus intaa la egna iyo bakeerigiisoo dhaqana walba taksigaa loo saaraya marka kan taxi xoogaa markuu qof qaadaba ama mid kaloo asna intii oo kala wata ha baa agtiisa wuxuu leeyahay warhaadhe maanta kaala anaa la iisoo dhaamiyey isoo ag fariiso ana li soo dhaamay baabuurkiisii uu ka deganayaa kii kalu galaya halkaasay shaaha qabta ku heneen inta leen ka sugayaan shaaha dhac qabta rootiga iyo hilibka war bal cadkaan cun ma nin saas u bartay oo bacdiisa loo sii buuxinayo taraagana jeeg intaa leeg baa loo sii buuxiyay oodkac Ilaa- wiigga uu maqan yahay Uu ka wiiggii dhan hilib uu soo cunayay tan kala magaalada kala joogtaa maqlaan maxay ku soo rartaa taraagga qolla seexdu leeyahay de mid baa deerta u degan astaghfirullah alcadiim astaghfirullah waxyaalahan ka hadlayno even though ay fani u eg yihiin waa reality waay. waa reality Soomaaliya waa u jeedin Saciid Shaay wax ay ceshanayso ma jirto waa Waa reality xaqiiqada in laga hadlo waay. marka Saciido runtii saan u sheekaysanayno waa waxyaabaha aan maqalno waa waxyaabaha aan ka warhayno ama inta ka dhacaan ama asxaab kale oo wadamo kale ha joogaan marka isbedelka qoyska saad u aragtaa seel iskugu bedeli karaa qoysaskan Soomaalida oo guurka dhacayo 6 bil kadib kuwa cusub hadda waxaa jiraan la yiri oo waqtiga kulaalaha samarka isguursadaan markii la gaaro contract marriage maxaa la rono magac baa inaa magac u sameeyno sama fiicna winter contract marriage waay contract contract marriage waay because waxa waaye samarka la aroos labada qof December adigu ma maqashay ama ma maqashay December ma maqashay adigu qof yeeda aniyadu saaxiib baan nahay cabaar baanu hadda sheekaysanay islaantii Afrika u diray xoogaa bay maqnaanaysaa aduu 6 bilood 6 bilood maya 6 inta naga maqan tahay 6 bilood waa iskuursanayna
oo iyadu wayba og tahay ninkan inuu naag qabo waaba wada kuwan ka hadlayno tirnaagi nimankii ficnaa naag baa haysata naagii sidaas ah 6 bilood baan bay wala isla guursan qodba sareedii adigu iska reer magaalaysan waayno sax oo qodba sareed qoftii markay soo dhowday xataa mar badan wuxuu isku dayayaa tigidkan usii dheereeyo magaalo kale magaalo kale lacag buu diray xulay bal wadankaasna soo mar ma aragtay wali daawadayaal aniga iyo Marwo Saciido sheekadan halkan ma ku dhamaanayso marka aan ku soo noqono sitamaanka dambe aan sii wadno isbedelka qoyska iyo furitaanka waxyaabo badan aan rabnaa inaan ka sheekeysano idinkana aad nala dareentaan aan nala fariisataan waxaan aan ka hadlayno marka Saciido adigoo soo koobay hadalkaaga oo waqti badan aan haysanin maxaad ku soo xiri lahayd ilaa sitamaanka dambe soo socda duu Ilaahay yiraahdo waxaan ku soo xiri lahaa horta runta marka loo hadlo waxa aan ka hadlaynaa ani walaashay farxiyo waa wax reality oo jira inkastoo aan kaftan iyo qosol iyo wax iskaga dadarnay laakiin mid kasto inuu ka hadlo wax waaqic ah oo jira waaqic reality oo jira waay ama ha noqoto nimanka taraaga saaran ama ha noqoto taksiga cuntada loo qaadanayo dib ma laha qofka cuntadiisa qaato okay waay laakiin qofka inuu isloobin oo wadankan aanu joogno cuntadiisa nooc kasta hadii loo fiiriyo waa cunto aan يعني فات كوبديها أنا Soomaali ahaana cuntadeenu waa asal kulligeed waa wada faad marka in la baro xataa ilmaha soo koraya in la baro cagaarka qudaarta in la baro arinta kale oo arintaas ay soo hoosgalayso waxa waay gabdhihii Soomaaliyeed kulligood waxa ka dhamaaday vitamin D iyo calciumki iyo ironki saddexdaasba waa ka maqan yihiin sababta waxa waaye waxyaalahan ay maanta marba af gashanayso daaya aan xogaa furdada ku daraayay ma wada jiraan laakiin xogaa wax waa ka jiraan laakiin ma aha cunto dheeli tiran oo qoftii markii waxa laga helaa vitamin D oo kale waxa laga helaa qorraxda qofkii markuu guriga uu ku dhex jiro meeshaas uu ku dhex jiro oo qorrax aysan jirin wax kale oo ama sida hadda broccoli oo kale waxyaalaha green kana anagu guriyeen uma badna aan la cunin wax supplemental oo caadi ah marqtar laga soo qaadan uu soo jirno oo la cunin waxa dhacday gabdhihii dhan waxa ku dhacay lafii eber jirkooda xataa jirku u fiican yahay jirkooda waa eber in marka arimahaas oo dhan waxyaalo ay soo galayaan cuntada waqti gaar ah waliba qof nutrition inaan keeno waay aanu keeno gabar Soomaaliyeed nutrition ayaan soo invite gareynaa in marka aanu dareeno waxyaalahan oo dhan mushkilooyinka marka la isku daro qofka marka uu vitamin D uu ka yar yahay waxa ku badanaya dabeecada ka xumaanaysa waxa ku badanaya xanaaqa waxa daalkiisa badanaya dib buu dareemaya socodkiisa yaraanaya intaas oo dhan oo dhibaato qofkii markii ay imaato qofkii waa qof qurux badan oo labisan oo de wax kale xanuun ma hayo waxaas iyo depressionka iyo hawlihi markii la isugu daro cudur kala meesha ka dhashay guriga marka inuu sii dubo ma ogay ma soo wanaagsanaanayo marka waxyaalahaas oo dhan oo cuntada ay ku jirto oo gaar uga hadli doono insha Allah iyo dhibaatooyinkan kale oo labada qof oo communication uusan jirin iyo wadankan iyo environmentkan dhibkeedii iyo dabeecadihii wixii wadankan lagu yaqaanoon jirin iyo support group oo dad yani walaalo oo ehlo qofkan caawinaya oo jirin iyo ninkii asna gaar u rafaadsan markay isku imaadaan dhibaatooyinka aad ay u fara badan yihiin ilaa la dareemo dhibaatooyinka fara badnidooda iyo sidii ay yihiinna xal ma la keeni karo basically marka hadda waxaan aniga walaashay wadna wacyigelin in la dareemo dhibaatooyinka jira aynu miiska soo saarno wixii xal marka qofkii markii la dhibaateena ku jira qof walba fikiraya wixii xal asaga u ah asaga ayaa raadsanaya anagu xal ma keeni karo marka daawadayaal saad u jeedaan aniga Saciido Marwo Saciido Shaaciye kuma dhameyn karno waxyaabaha rabna aan inaan ku hadlano marmar waan qoslaynaa sheekada waxaan ka dhigaynaa cayaar saan u furno qofka bini aadanka maskaxdiisa aan u dhaxgalino anaka kuma taageerayno wax xum uma dan lihin just inaan ka dhigno waxyaabihii aan ka hadlayno inaan wax aan environment oo furan aan ka dhigno haddaad su'aalo qabtaan haddaa rabtaan inaad ka soo qayb gashaan showgan Farxii Show ana la qayb gashaan aniga my sister Saciido Shaaciye always you are welcome Farxii Show studio noogu imaan kartiin waxaad nagala xiriirtaan farxiishow.com hadduu Ilaahay yiraahdo aniga iyo Marwo Saciido Shaaciye waxaan casumeynaa taqaatiir Soomaaliyeed oo magaaladan degan si nagala qayb qaataan dhinacan oo emotionalka isbedelka qoyska furitaanka badan maxaa keenay waxaan kaloo casumeynaa dadkan psychologicalka oo maskaxda iyo taqaatiir aan xataa Soomaali ahayn hadduu Ilaahay yiraahdo iyo marka dambe aan is arki doono waxaan idinkaga tagaa nabad iyo bashbash iyo barwaaqo anigoo Farxiyo Khaliif ah waa mahadsantihiin waxaan u mahad celinaa my team
master cawaale oo maalin walba diyaar ah oo farxiisho soo saaraha barnaamijkan ah my sister marwa saciida shaaciye waa mahadsan tahay till next time as aragna duu ilaahay raad nabadee farxiishow.com السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبضي